السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسكو soo laabad wanaagsan oo xiiso leh. Magacaygu waa Farxaan Axmed Maxamed. Halkan adiga daawanaysan waa Fahad Tej. Hadaba muuqaalka amaantidiisido waa muuqaal ka duwan muuqaaladii aad horiga barateen. Muuqaalkan ayaa waxaan ugu hadli doonaa gaariga ugu qaalisan ama gaariga ugu raaxada badan adduunka. Gaariga aad ku riyoto in aad iibsato ee lagu magacaabo Rolls-Royce laguma sameeynin god taajiriin. Waa fikradda wiil faqiir ah. Rolls-Royce waa gawaarida ugu casrisan dhanka raaxada, tayada iyo waxtarka. Waa mid cajiib ah. Sidaa darteed, muuqaalkeena maanta waxaan uga hadli doonaa sidii Rolls-Royce ku yimid. Waxa si oo dhan waxay ka bilowdeen wiil beerarey ah markii uu sameeyay motor, cid isdhahaysay markii uu kiciyay motor, cid isdhahaysay ma jirin gaari ayuu sameyn doonaa. Laakiin maalin buu sameeyay gaariga ugu qaalisan. Fikradiisa ayaa waxay ka dhigtay la tartanka kuwa kale. Magaciisuna waa Frederick Henry Royce. wuxuu dhashay 1863 wuxuuna ku dhashay wadanka Ingiriiska. Waalidiintiisa James iyo Mary waxay maareyn jireen qoyskooda, waxayna ku maareyn jireen riiqidda ama shiididda qamadiga iyo wixii la mid ah. Henry Royce ayaa xiisayn jiray ganacsigaas, balse ganacsigaas ayaa ahaa mid aan kaafirin qoyskuna waxay la tacaalayeen faqiirtinimo. qoyska Henry 1867 waxay u soo guureen caasimadda dalka ee London si ay u helaan waddo cusub oo ay ku noolaadaan. Henry markii uu jiray kaliya 4 sano nasiib darro aabihii ayaa geeriyooday. natiijaduse waxay noqotay Henry inuu shaqeeyo si uu u maareeyo nolosha qoyskiisa. Wuxuu bilaabay iibinta wargeysyada. Henry si uu u horumariyo shaqadiisa wuxuu galay goob waxbarasho, wuxuuna ku takhasusay aljabrada, Faranjiga iyo electrical engineering. Kadib wuxuu ka shaqo bilaabay company electrical ah oo saddex sano kadib haddana waxaa qabsatay dhaqaale yari. 1882 wuxuu u wareegay magaalada Liverpool. markaas wixii ka dambeeyay noloshiisa oo dhan waxay ku soo koobantay electrical engineering. wixii markaas ka dambeysay wuxuu ka shaqo bilaabay company la yiraahdo Electrical Lights Company. markii uu jiray kaliya 22 sano wuxuu aasay company isaga u qaasa oo la yiraahdo Frederick Henry Royce and Company. kadib waxay isbarteen nin la yiraahdo Ernest Clementon, waxayna wada shaqeynayeen sanado fara badan. shaqadooda saa'idka ah awgeed muraaxadaha aan hadda adeegsano iyo deynamooyinka ayay sameeyeen. Henry Royce ayaa ka qayb libaax leh ka qaatay hindisida ama hindisida aan dhahay Rolls-Royce ama gawaarida Rolls-Royce ee haatan wada aragtaan. haddaba waan wada fahanay qofka uu yahay Frederick Henry Royce. hadda waxaad isweydiinaysaa waa kuma Rolls? magaciisa oo dhammaystiran waa Charles Stewart Rolls. waa midka ugu yar qoyskiisa, waxaana dhalay hooyo iyo aabbo la kala yiraahdo Lord iyo Elenda Katok. wuxuuna dhashay 1877. wuxuu ku dhashay Ewelton, magaalo la yiraahdo oo ku taala dalka Ingiriiska. ilaa yaraantiisii ayuu jeclaa inuu noqdo injineer. wuxuu wax ka bartay jaamacad la yiraahdo Trinity Cambridge College, wuxuuna bartay mechanical engineering. naanaystiisa markii uu yaraa waxay ahayd Daddy Royce, oo ay micnaheedu tahay Rolls-kii wasaqlowga ahaa. Henry Royce 1904 wuxuu sameeyay gaarigiisii ugu horreeyay. saddexdii gaari ee ugu horreeyay mid wuxuu hadiyad ahaan u siiyay saaxiibkii Ernest Clementon oo ay wada shaqeyn ka dhaxaysay. midna wuxuu ka iibiyay Henry Edmonds oo ay wada shaqeyn ka dhaxaysay isaguna. Henry Edmonds hadda waxaad isweydiinaysaa qofka uu yahay. Henry Edmonds waa iibgeeyaha shirkadda Frederick Royce and Company. wuxuu door muhiim ah ka ciyaaray isbarashada Rolls iyo Royce. labadooduna waa ay midoobeen, waxayna sameeyeen wax aan la aamini karin. Royce wuxuu jiray 41 sano halka Rolls uu jiray 26 sano. guushooda waxaa sabab u ah in ay aaseen shirkadooda laga magac baxday Rolls-Royce. sidoo kale waxay sameeyeen xiriir qoto dheer. Rolls ayaa xiriir la sameeyay Colonel Johnson si uu ugu suuq geeyo gawaaridooda. ninkan ayaa door muhiim ah ka ciyaaray suuq geynta, xayeysiinta
gawaarida Rolls-Royce, halka Rolls iyo Royce ay ku mashquuleen samaynta gawaarida. Rolls ayaa ka mid noqday Rolls-Royce aan dhahay gawaarida Rolls-Royce ayaa ka mid noqday gawaarida ugu qaalisan caalamka. Rolls-Royce ayaa u soo bandhigay Rolls aan dhahay Rolls ninka la yiraahdo Stewart Rolls ninka la yiraahdo ayaa Royce u soo bandhigay in ay sameeyaan diyaaradaha matooradooda ama aircraft-ga, balse Royce ayaa ka diiday. Rolls ayaa go'aansaday in uu u wareego dhanka aircraft-ga ama diyaaradaha, wuxuuna sameeyay wax ka badan 200 oo duulimaad, wuxuuna ku sameeyay gacanka Ingiriiska. Wax walba waa ay isbedeleen markii uu Rolls ku geeriyooday shil diyaaradeed, markaasina wuxuu jiray kaliya 32 sano. Henry Royce ayaa kali ku noqday kambanigii Rolls-Royce, wuxuuna sii watay samaynta gawaarida. Si walba ahaataba 1933 Henry Royce ayaa geeriyooday. Haddaba gawaarida aad maanta aragtaan ee raaxada ah ee Rolls-Royce sida ay ku yimaadeen.